maroodi iyo ey ayaa isku mar uur yeeshay. 3 bilood kadib eygii wuxuu dhalay 6 eeyar. 6 bilood kale ayaa dhaafay, eygii mar kale ayuu uur yeeshay. Markii 9 bilood la gaaray wuxuu mar 2 jeer dhashay in ka badan 10 eeyar, kuwii horena si degdeg ah ayay u koraanayeen, ordayeen oo qaylinayeen. Markii 8 bilood la gaaray, eygii ayaa u yimid maroodigii oo ku yidhi, ma hubtaa inaad xitaa uur leedahay? Maroodigii ayaa istaagay, yaabay, wuxuuna ku jawaabay, maxaad sidaas u leedahay? Eygii ayaa sunniyaha kor u qaaday. Sababtoo ah hal maalin ayaan wada uur qaadnay. Anigu 3 jeer ayaan dhalay in ka badan 10 eeyar. Way ordayaan, way ciyayaan, waxayna noqdeen eeyo waaweyn. Adiguna weli hal mar maadan dhalin. Wax baa khaldan. Maroodigii ayaa indhaha si toos ah ugu eegay, dabadeedna si tartiib ah ugu foorarsaday. Saaxiibaday, waxaa jira wax aad u baahan tahay inaad fahanto. Waxa aan sidaa ma aha eeyar. Waa maroodi. 2 sano ayay igu qaadataa inaan dhasho hal keliya. Laakiin marka ilmaygaygu dhulka ku dhaco, dhulku uu gariiraa. Marka uu waddada gooyo, dadku way istaagaan iyagoo yaaban. Waxa aan sidaa waa mid haybad leh. Waxay u baahan tahay waqti. Waxay soo jiidataa indhaha. Waa awood badan tahay, waana mid mudan in la sugo. Sidaas darteed ha isbarbar dhigin safarkaaga kan qof kale. Waxa aad sida waa ka duwan yahay. Marka uu yimaado, dunidu way ogaan doontaa.